A waxaa lagu yidhi fiiriya lead sulfide A waxaa lagu yidhi A lead sulfide B maxaa lagu yidhi B waxaa lagu yidhi aluminium hydroxide kullina waa solid soo ma jirto bracketka iska ku jirta lead sulfide iyo aluminium hydroxide waxaa laga yidhi kala baxoodan ii qor case B dan ii qor kala baxan ii qor case B ii qor waaya kala baxoodana ii qor case B dan ii qor waxaa leedahay solution waxaa leedahay solution aan soo dhaha solution solution yes solution hoos ka xariiq kow ee umo ee maxaa lagu yidhi lead sulfide ayaa lagu yidhi lead sulfide kala baxeeda laga rabaa lead sulfide waxaan leeyahay waxay kala baxeedaan fiirinaya waxay u kala bixi kartaa lead sulfide waxay hee u kala bixi kartaa waxaan leeyahay b oo jarjigeedu yahay plus 2 uu yahay oo milmaysa oo aq ah oo lagu daray so 4 oo ayna jarjigeedu yahay 2 oo ayna aq ah oo milmaysa waxaa laga wadaa milmaysa sax kala baxa waa sidaas kala baxa waa saas case B qor baa lagu yidhi haddana case B geeda mid kasta qor waxaad leedahay case B waa productigan oo laisku dhuftay multiply together waxaad leedahay bracket fur lead maadaama coefficient aysan lahayn coefficient hadday leedahay power baan uga dhigi lahayn kanna waa iska charge kan waa iska charge lead oo lagu dhuftay sulfate lagu dhuftay that's case B midda koowaad waa ka jawaabnay waa kala jebinay case B na waa qornay midda labaad oo aluminium aan aadna midda labaad ee aluminium aan aadna tanna aan iska tirno number 2 solution aan dhaha number 2 solution aan dhaha oo B ah oo ah aluminium bracket hydroxide oo adka ah waxay u kala bixi doontaa sidaan soo socota waxay noqon doontaa aluminium plus 3 ion plus OH oo minus ah because saddexdan hoosta taala waxay ka imaaday aluminium iyo ol ka imaad marka markii macnaha criss cross method ama macnaha isdhaafsiga danabyadan ay isdhaafayaan haddii curyaha uu halka badan yahay bracket geli jarjigan hoostiisa dhig sida hadda ka imaaday halkan oo tusaale ahaan aluminium plus 3 iyo hydroxide kala bixi waa qortay maxaa laga rabaa case B laga rabaa inaad qorto case B waxaad leedahay case B waxaa waaye waa aluminium oo lagu dhuftay hydroxide waxaad leedahay bracket aluminium oo lagu dhuftay jarjiga waa iska reebaysaa jarji kuma daraysid laakiin hadduu horgalo leeyahay horgalaha ayaa waxaa uga dhigaysaa square ama power oo lagu dhuftay hydroxide that's the case B waa ka shaqaysay tan labaadna waa ka shaqaynay okay aan aadna markaan tukalaan aadna waxaa lagu yidhi balance garee the following reduction oxidation equation isla egtaan adoo ku balance garanaya habkan reduction oxidation adoo ku balance garaynaya balance garee baashan waxaa laga baahan yahay dhowr step inaad marto stebyada marka nala soco stepka koowaad waxaa waaye waa kala jebin half reaction stepka koowaad maxaa waaye step 1 waxaa waaye half reaction half reaction
step 1 half reaction step 1 waa kala jibinay macnaha waxaad leedahay zinc meel kasta product ay ku jirtaan soo qaadanayna waxaa leenahay zinc NO sub 3 bracketkana waa 2 oo sub 2 ah ayaa soo baxaysa waxaan leenahay nitric oo HNO sub 3 ayna waxaa soo bixi doona inta soo hartay oo ah nitrogen dioxide plus water step 1 waa intaas step 1 waa intaas step 2 waxaa lagu yiri waxaa qortaa oxidation reduction iyo oxidation ku dhacay iyo reduction ku dhacay step 2 hadda halkaas ayadoo halkaan aan joogno ayaan fiirinaa step 2 maadaama macnaha meel weyn aysan noo qaadin ox reduction iyo ku dhacay ox reduction iyo oxidation ku dhacay reduction ku dhacay waa ogaanayna waxaan daraa soo sheegnay markuu elementiga yahay curiya videoga kala daawa oo aan ka sameynay oxidation reduction aan ka sameynay curiya kaligiis markuu meel tahay oxidationkiisa waa 0 zinc waa +2 zinc oxidationkeeda waa +2 halkaan ay ku jirto maxaa yeelay labadan hoose waxa iska leh labadaas waxa iska leh oxidationka waxa waaye oo zinc ka soo wareegtay markasta nitrogen markay ku jirto isku dhis waxa waaye -2 markii laga reebo peroxide nitrogen ma naqaan aan soo raadsan labadan bracketka hoostiisa taala waxay ku dhufsan tahay nitrogen waxay ku dhufsan tahay oxygen 2x lagu dhuftay oo nitrogen ah +2 +2x plus labadan saddexda oxygen hoos taala ku dhuf midana kor taala iga taaban oo oxidation laba saddex diluut waa 6 +6 oo bracketka for oxidation numberka geli oo ah -2 ah oxygen bracketka xir waxay la mid yihiin 0 waxay la mid yihiin 0 waayahay aye fiiriya 2x iska soo hormarsa plus 2 laba lix haddaa ku dhufato meeqa waay waa 12 minuskana calaamadda soo qaad marka -12 waxay la mid yihiin 0 okay -12 iyo 12 way kala jarmayaan waxaa soo bixi doontaa 10 ayaa soo bixi doonta -10 2x step bara inaan ku tuso -10 waxay la mid tahay 0 10 haddaa wareejiyo xagga muxuu ku tegi doonaa plus uu ku tegi doonaa oo haddaan inta keeno wuxuu imaan doonaa 0da xaggeeda wuxuu imaan doontaas waayahay waxaan leeyahay 2x waxay la mid tahay 10 meel walba 2 qaybi meel walba 2 qaybi 2 way la baxday x maxaa waaye waxay la mid tahay 5 laba loo qaybi meeqa soo baxaysa 5 aa soo baxaysa x waxay la mid tahay 5 nitrogen waan soo helay waan iska tiri x-ka waxaan ku bedelan 5 tilisoo siiyey ayaan ku bedelanayaa 5 oxidation numberka saasaa loo raadiyaa haddaa rulkii aan soo sheegnay aad wax ka taqaana waa ka shaqaysanay kumana wareeraysa processkan marayn aan iska tira waxaad u imaadaa qaybta labaad aan soo raadin qaybta kor waa soo helnay oxidationkeeda iyo reductionkeeda waa helaynaa curiyaasha elementi kasta oo nitrogen oo qaybtan koraan ka shaqeynaya hadda aan hoosteeda hariiqa ayaan ka shaqeynaya qaybta kale uma gudbin plus x plus 3 oo ah saddexda oxygen hoos taala saddexdaas oxygen bracketkana waxay ii gelisaa macnaha ii geli meeshaas oo -2 oo bracketka ah waxay la mid tahay aan dhaha 0 ayay la mid tahay oo 0 loo ekaysiiyey okay aan dhaha marka x banaankii keenay x plus 1 saddexdii -2 lagu dhufto meeqa waay waa -6 waxay la mid tahay 0 labadan way kala go-aan waxaa soo baxaysa plus 6 iyo 1 iyo waxay kala go-ayaan -6 waxaa soo bixi doonta -5 wuxuu la mid yahay 0 andhaha haddii 5ka xagga loo wareejiyo muxuu ku tegi doonaa plus oo wuxuu noqon doonaa x waxay la mid tahay 5 waxaan soo helay nitrogen inay tahay oxidation numberkeeda plus 5 inuu yahay ayaan soo helay inuu 5 yahay ayaan soo helay aan qorta marka aan dhaha
5 ayaan soo helay qaybtan kale mow oxygen always waa -2 kana waa x aan dhaha kan waa iska 4 sida hadda meeshan ka cad waa iska 4 laakiin waa ku qancinayaa aan dhaha marka aan iska tiro qaybtan ama iska tiro qaybtan iska tiro waan dhaha x nitrogen plus waa qaybtan waxaan ka shaqeynayna plus 2 oxygen oo ku dhufsan oxidation numberkeeda oo -2 ah wuxuu la mid yahay dhaha 0 wuxuu la mid yahay 0 okay haddii -2 plus 2 isku dhufsan waxaa soo bixi doonta -4 wuxuu la mid yahay 0 -4 haddii xag lagu wareejiyo qutugeedana +4 ku imaan doonaa kan okay x wuxuu la mid yahay 4 oxidation numberka nitrogenna waan soo helay intaas maxaad u maraysaa inaad ogaatay yuu ku dhacay oxidation yaa wax helay yaa wax lumiyey intaas bis waayo waxaan intaas u marayno waan soo helnay +4 inta curiyaashan kale isma bedelaan hydrogen meeshan waa +1 curiyaashan kale isma bedelaan fiir zinc meeshan way kasoo tagtay 0 ayay ahayd meeshan waxay ku maaday 2 oxidation numberka wuu siyaaday neutral ee dhexaad ahayd falgalay samaysay laba bixisay waxaa dhacay markastoo electronada dhanka ka jira maxaa waaye waa oxidation number markastoo electronku uu kaa jiro oxidation ayaa kaas ka dhacdaan oxidation waxbaa la lumiyey fiiri meeshan hydrogen qaybtan kale oo nitric hostile meeshan hadda aan xariiqay hydrogen waa +1 nitrogen waa +5 oxygen waa -2 nitrogen meeshan markay product imaaday waa +4 meeshan kale waa oxidation waa 2 day hydrogen iyo oxygen meeshan isbeddelay nitrogen bas isbeddelayso qaybta reactant hydrogen +1 bay ku joogtaa qaybta product oo water ka ahna ay ku joogtaa +1 xagga nitrogen -2 ku joogtaa laakiin isbeddelay nitrogen isbeddeshay product waxay ku joogtay +5 bay ku joogtay inta waxay imaaday maartay 4 sidaas daraadeed oxidation numberka wuu nusqaamay oxidation numberkii xagga product wuu nusqaamay wuu yaraaday markuu yaraadayna macnaheedu waxaa waaye waxbay heshay xagga 5 ahead had meesha waxay ku joogtaa 4 it gained 1 electron macnaha hal electron ayay heshay meeshaasna waxaa ka dhacay reduction markastoo electron uu nusqaamo oxidation numberka reduction alright hadda laba step marka gudubnay stepka koowaad oo kala jibi ah iyo stepka labaad oo isla meesha aan uga shaqaysanay oo asna ah iyo oxidation ku dhayo reduction ah step 3 baan aadayna oo ah midka balansiga u baahan balansiga okay qaybtan waa iska tiri doonaa qayb kale aan qoran doonaa si aan maartay la socoto marka la soco okay stepka saddexaad oo ah balansi garee number of atoms tirada atomada step 3 maxaa waaye halkaasaan kugu qoray labada step oo kale day waan tiray step 3 waxaa waaye balance oo b aan usoo gaabsaday number of atoms on n usoo gaabsaday n iyo atoms oo usoo gaabsaday at balance number of atoms step 3 markasta oo oxygen waxaad ogsoontaa oxygen aad balance garaynaysa uriyahaas oxygen aad balance garaynaysa waxaad ku dartaa biyo add water markii la joogo meesha markii la joogo markastoo hydrogen ion aad balance garaynaysa only add waxaad ku dartaa hydrogen ion markastoo hydrogen aad balance garaynaysa hydrogen ion bas ku dar magarat markastoo oxygen iyo macnaha aad balance garaynaysa waxaad ku dartaa hydrogen ion ku dar haddaba imo meeshaan curiyaashan markaad dheelitiraysa wixii oxygen iyo wixii hydrogen banaanka waa loo kaadsadaa curiyaasha kale laga shaqeeyaa meeshan zingi waa hal bay ku taala dhankan producti waxaa ka muuqda nitrogen oxygen aan banaankan dhiga waa u kaadsana iyo hydrogen maxaa loo baahan yahay ku darsato waxaa loo baahan yahay nitrogen aan balance garay nitrogen kaligeed ma kusoo darsadaa waa maya curiyaha waxaad kusoo darsan kartaa marka buugga muqarrarka qoraaye baashan waxaad kusoo darsan kartaa marka u baahan tahay inaad dheelitirto nitriga caadiga oo ayada falgalka uu ka koobnaa zinc plus nitric acid ayaad kusoo darsan kartaa waxaad leedahay
nitric NO sub 3 ayaan ku darsaday NO sub 3 nitrogen meeshaan bracketka labadan hoose way ku dhacaysaa ayaday ku dhacaysaa mid walbay ku dhacaysaa meeshaan nitrogen laba ay ku joogtaa laakiin inta bracketka meeqa ku joogtaa ay ku joogtaa laba balance garay marka nitrogen meeshaan way balance garaysanta curiye dheeraad ayaa yimid oxygen aan fiiriyo oxygen 2 plus 3 2 times 2 3 2 times 3 waa 6 intana 2 times 3 labada horgalaha iyo saddexdan oxygenta hoostaala ayaa isku dhacaysa waa 6 waa dheelitiranta laba hydrogena meesha imaaday markastoo hydrogena balance garaynaysa maxaan ku darniri hydrogen ion ku dar balance andaha marka balance 2 hydrogen ion andaha 2 hydrogen ion andaha hydrogen ion waayahay la soco marka meeshaan nitric acid wax kale u kaadii nitrogen way balance garaysan tahay nitrogen meeshaan way balance garaysan tahay hal iyo hal ay ku joogtaa dhanka productiga dhanka reactiga oxygen meeshaan 3 waaye dhanka reactant productiga hay dhanka reactantiga laba oo la socota nitrogen dioxide iyo hal la socota water 3 waaye waa balance garaysan tahay dhankan kale markaan fiiriyo laba waaye dhanka productiga laba ay ku joogtaa hydrogen laakiin dhanka reactantiga oo nitric hal ay ku joogtaa maxaa loo baahan yahay inaan ku darsado hal hydrogen ion bas ayada macnaha water kuma daray okay waxa lagu yiri marka stepkaas number of atoms waa noo dheelitiran yahay number of atoms waa hal zingi laba hydrogena qaybta kore laba nitrogena qaybtan laba nitrogena 6 oxygen dhanka kore oo reactantiga dhanka productiga sidoo kale tan waa iska hubinay macnaha mar walba waa iska hubinay hay qaybta stepka saddexaad stepka afraad step 4 maxaa waaye step 4 waxaa loo baahan yahay inaad kaadiya step 4 waxaa lagu yiri balance oo b u soo qaadanayna n oo soo qaadanayna number of charges step 4 wakaas number of charges step 4 halkaan u joogan stable socda waxaan leeyahay marka fiiriya waxaan leeyahay meeshaan uu chargiga meesha uu ka muuqdo waxa waaye meesha hydrogen ion meesha hadda ay ka muuqdo chargigaas laga rabaa maxaa loo baahan inaan ku balance garay labadan hal charge halkaan haddii labadan horgalaal u dhufto laba maxay wataa charge plus waxaan ugu daraa 2 electron ayaa lagu balance garaya maalin horan soo marnay haye meeshaan 1 charge ayay wadataa hydrogen maxaa loo baahan inaan ku balance garaya 1 electron ayaan ugu daraya electronada ma sinna hadday sineen maxaa looga baahan inaad weydaariso oo qaybta kale oo cagsigeeda ku dhufato qaybtan kore 2 electron baa taala qaybtan hoosena xataa 2 electron waayo waa isdhaafinaya qaybta labada wadato waxaan ku dhufan doonaa hoos inta bracket yar furto waxaan dhihi doonaa qaybtan hoose halkeeda waxaan ku dhufan doonaa qaybtaas kore qaybtan hoosena waxaan ku dhufan doonaa labadeeda qaybtan hoose qaybta kore waxba iskama bedelayaan qaybta kore aan xariiqda hoos ka xariiqda qaybta kore waxba kan bedelmi doonaan waxaan soo qaadan doonaa sideedaan usoo qaadan doonaa waxaan dhihi doonaa zinc plus 2 nitric waxaa barodhagtaana kusoo baxday zinc nitrate tabteeda usoo qaadanay qaybta kore way la socotaa rajeynayaa o sub 3 hoos gala labadaasna ay u taal hoos qaybta kore sideeda usoo guuri ilaa hal waxaa kan bedelaye halkaan ku dhufanayna waxaa ka bedelaye plus 2 electrons qaybtan hoose isbedelaysa wax yar tira ahaan isbedelaysa oo waxaan leenahay laba haddii lagu dhufta waa ku dhacaysaa meel walbay ku dhacaysaa waxaa soo bixi doonta 2 nitric acid ayaa soo baxaysa doonto labadaas haddana ku dhufa hydrogentan ku dhufa qaybtan ku dhufa waxaa soo bixi doonta 2 hydrogen plus ion haddana electron ku dhufa waxaa soo bixi doonta 2 electron waxaa soo bixi doona fallaarta raaci 2 nitrogen dioxide 2
2NO sub 2 plus oo water kusii dhufo 2 molecules of water 2 molecules of water. Okay, xaalad saanay ku dhamaatay marka xaalad halkaan hadda maraysaa. waxaan u baahanahay inaan isku dardarsado waxayga marka position aan anaha la soo baxa position ayaan la soo baxaya qaybtan koraan iska tiraynaa maadaama ay meeshan ugu yartahay. qaybta koraan iska daray qaybtan hoose ayaan soo qaaday sideeda usoo qaaday waa kana qaybtan halkaan koraan keensaday si macnaha aan hoostaga xariiqdo marka saas ila soco ha ku wareerin waa tahay sidaad igu soo qaad hoostan iga xariiq waa hoostan ka xariiqanaynaa. waxaa lagu yidhi marka hadda waa kanaaye wixii isla baxay isla bixi wixii qaybtaa markii la joogo number of charges markii la joogo wixii isla baxay waa la isla baxsiyaa. 2 electron waxay la bixi doontaa 2 electron 2 hydrogen waxay la bixi doontaa 2 hydrogen ayaa wixii isla baxay waa la isla bixiyaa markii aad balance garaynaysa charge-ga. waayahay qaybtan kore soo qaada qaybtan hoose ku xiji oo soo qor marka select maadaama hadda wixii isla zinc plus beesha 2 nitric ayaa taala oo 2 nitric qaybta hoose taala 2 nitric hadii 2 nitric isku dara labadan hadii isku dara meeqa soo baxaysa 4 nitric ayaa soo baxaysa 4 nitric ayaa soo baxaysa maadaama isku mid yihiin waa isku darsan wax kale ma jiraan. qaybtan kor soo qaada si isku xigaan ee la isku xijiyaa zinc nitrate NO sub 3 oo bracketka laba hoostaan. qaybtan waxa ku xigta qaybtan hoos ayaa ku xigta ku xiji plus 2 plus 2 NO sub 2 plus 2 molecules of water oo ah kan ugu dambeeya 2 water molecules. shaqadaada waa dhammaysatay laakiin maxaa laga baahan yahay mar kale jaag ama inaad suubiso atamyada misla eg yihiin stepka farad maadaama aad martay oo ay wax ku haran yihiin wax kale ku haray mala meesha net charge bisa ku haray hal zinc ayaa inta ku haystaa inta hal zinc meesha waxaan ku haystaa 4 hydrogen meesha waxaan ku haystaa markii labadan isku dhufto 4 hydrogen 4 nitrogen ayaan ku haystaa oo 4 tan oo koor dhacaysa mid walba horgaleed ku dhufanaysa. meesha waxaan ku haystaa 2 nitrogen oo stepkii shanaad ee step 5 asna net charge ayaan fiirinaa net charge oo ah saafinimada xagga electronada. meeshan wax saaran malaha oo electrona meeshan waa 0 meeshan waa 0 electronada meeshan waa 0 wada 0 marka maadaama wax charge u saaran yahay aysan jirin waxaan leeyahay 0 waxay la mid tahay 0 laakiin ugu haddaan rabo waa u yeelan karaa electron haddaan rabo u daran oo aad rabtay inaad si fiican iskaga fiirisa waa stepka saddexaad oo ah balancing number of atoms kaas oo maxaa yeelay wax aan ku jirin ayaa soo galaya laftamid hydrogen ka maqan lagu soo daraa oxygen ka maqan lagu soo daraa wax ka maqan lagu soo daraa marka waxbaa kusoo saa'idahay marka taasaa xoogaa wareer taas ka fiirisa inta kale waa fuudiyin waxaan ku rajeynayaa inuu kan ku noqon doono meel wax ka ikhtiraacda waana soo badin doonaa haddii ilaaha yidhaahda isagoo dhowr video ayaan soo subi doonaa marka waa ku mahadsantiin la socoshadiina taas ayaan kusoo afmeerayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaa uu idinkaga imaanaya maanta casharkan iskuulka Central Africa ayuu idinkaga imaanayay waa mahadsantiin.